wafdigan oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayna qayb ka ayeen wasiiro ka tirsan Jubbaland iyo xildhibaan ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray degmada Doolow Soomaaliya kuwa oo ka yimid magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya. wafdigan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Doolow Soomaaliya ku soo dhaweeyay maamulada degmooyinka Doolow, Balad, Xawluuq, Boholgaris iyo Geedweyne, qaybaha kala duwan ee shacabka degmada Doolow iyo ururada hooyooyinka Balad, Xawi iyo Doolow iyo kuwa dhalinyarada ee labadaasi degmo. waxaana madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigiisa lagu soo dhaweeyay ciyaarta galeysada oo ka mid ah ciyaaraha dhaqanka ee laga ciyaaro gobolka Gadow, waxaana wafdigu uu gacan qaaday dadkii garoonka u joogay soo dhaweyntooda. kadib soo dhaweynta wafdigan waxaa garoonka diyaaradaha warbaahinta kula hadlay siyaasadaha xilka wasiir ku-xigeenka amniga iyo arrimaha gudaha Jubbaland Jamaal Xasan Sare iyo gudoomiyaha degmada Doolow Aadan Baracali. waxaan ku soo dhaweynaynaa degmada Doolow oo ah xuduntii halganka Jubbaland. xuduntii halganka Jubbaland degmada Doolow. taas darteed ku soo dhawaada degmada Doolow kumaana talagelin khudbad dheer iyo waqti dheer inaan ka qaadno maxaa yeelay muddo dheer buu dadku taagnaa oo in sugeynay annaga badan waan sugeynay waan caajisnay waqtiga anaga nagu dhamaaday annagana waan cabaaradinka wada cabaarteen soo dhawaada Doolow ku soo dhawaada waxay wareysi aanu dib baan soo wareysan doonaa. madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo wasiirka amniga iyo arrimaha gudaha Jubbaland Darwiish ayaa warbaahinta kula hadlay dhankooda qaybta nashada ee garoonka diyaaradaha Doolow Soomaaliya, waxaana ay u mahadceliyeen mas'uuliyiinta iyo shacabkii u taagnaa garoonka soo dhaweyntooda. waftiga uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenku waa ballaaran yahay ama xildhibaan qaran oo hore ama golaha xukuumadda ee Jubbaland afhayeenkii Jubbaland saraakiishiisa sare ee Jubbaland horta waftigaa ballaaran baanu ku nimid. runtiina waxaanu leenahay Doolow iyo maamulka degmooyinka gobolka Gada horta ha noolaado in baan leenahay. annagu maanta aanu dowladda dhaweynay waxaanu ku salaamayaa marka horeysa maanta aniga farxad gaar ah ayta marka dib baan ka hadli doonaa. waxaan marka hore ajiibaynaa saacadaha dheer oo aan tixgelinayo runtii maanta oo dhan aad taagnaydeen. Jubbaland waad garanaysaa marka Jubbaland Doolow waxay u tahay iyo sidaan kulligan isugu soo raacnay waa arrin aad iyo aad muhiimadeeda u leh inaad qoraxda noo taagnaataanna haddii culayskaas farada badan oo annaga laftirkanaga koobannahay baa keenayso waan idinka mahad celinaynaa. safarkanaga ujeeddadiisu waxaa weeye guud ahaan indhayntii iyo kormeerkii xaqa inoogu lahayd degmooyinka ka tirsan gobolka Gado. waxaa la dhammaystirayaa xubnihii baarlamaanka Jubbaland oo ah sharcigii ay ku istaagi lahayd Jubbaland hadduu la yiraahdo. Maxamed Cabdikariin Macallin, TV-ga caalamiga Universal, Doolow Soomaaliya.